shucuubta Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha caalamka ayaa had iyo jeer waxay aad iyo aad uga murugoodaan mashaqooyinka iyo mashaakilaadka ka alowsan geyga Soomaaliyeed khaas ahaan magaalada madaxda Muqdisho. mashaqooyinkaasi ayaa waxa ugu dambeeyay tii ka dhacday Hotel Mina halkaasi oo qarax ismiidaamin ah lagula beegsaday shucuub Soomaaliyeed oo markaasi halkaasi ay ku nafwaayeen kuna dhaawacmeen dad fara badan oo Soomaaliyeed isla markaasina ay ka mid ahaayeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyadoo ay ahayd bil barakaysan oo Ramadaan lagu jiro oo dadkuna ay sooman yihiin markaasi shucuubta Soomaaliyeed markaasi caalam ku dhaqan ayaa aad uga murugaysan arrintaasi oo ay taabatay iyadoo markaasi magaalada London oo ay cariga Ingiriiska markaasi aan kula kulmay hooyooyin iyo markaasi dad kale oo Soomaaliyeed oo markaasi cabiray rayigooda sida ay uga murugaysan yihiin waxyaabihii naxdinta lahaa ee ka dhacay Hotel Mina ee magaalada Muqdisho. maanta wixii ka dhacay magaalada Muqdisho waxay ahayd wax aad iyo aad looga qiiroodo aad iyo aadna noo damqiyo dadkaas oo dhan aad baan uga tacsiinana dhibkii ku dhacay waana la qabnaa waana sida ay feel gareynayaan ayaan anaguna u feel gareynaa ka badan ummadii Soomaaliyeed way dhamaatay waxa maanta dhacay iyo wixii shalay dhacay iyo wixii dorra dhacay iyo wixii dhacayay runtii aad iyo aad ayaan uga xumaana way ka sii dartay marka dareenkayga waa dareen aad u xun bil Ramadaan maalin Ilaahay u nabadgeliyo iyo naxariis iyo Quraan qoomiyad leh noo soo dejiyay aan filay in la karaameeyo maadaama ay sheeganayaan ummadda dagaalamaysa xaq iyo xaqaba inay diin leeyihiin ama islaamnimo ay ku saleysan yihiin runtii aad uga qaraacansanahay waan wax laga qaraacmo ilaa hadeertaan meel dheer ayuu beerkayga ka sii lushaa dad masaakiin oo aan waxay ku afuraan bahaysan ayagiyo dhaawaca isbitaaladii la geeyay waxaan aad iyo aad wax caloosha ila xanuunis ilaa maanta koobiya maan cabin dadka walaalahayga ah oo muslimiinta ah oo hilibka iigu yaalo oo Soomaali oo hilibkooda cadbacad u go'ay oo dhiigooda daatay ilaahay waxaan uga baryaanay jannadii firdaws ilaahay gurigooda inuu ka dhigo ilaahu ummadda Soomaaliyeed rabbi raxmaano ilaahu rabbi raxmaano qalbigooda burcad isku mar ilaa maanta ma harsan biya ma cabin wiil ajnabi ah hooyo ajnabi dhashay maanta uma maleynaa inay Soomaaliya dhibaatada ka keenayso xaq iyo xaqaba ayaga keensaday markii is halaagin waana cambaareeneen gabdhaha hadana kan dhimanayo waa wiilkeena kan wax dilay waa wiilkeena kan dhibaatada haysato waa wiilkeena hooyo Soomaaliyeed dhashay ma qof shisheeyo qofka dhimanayo waxa dhimanayo waa ummad Soomaaliyeed taas ogaadeen gami waaya ilaylkii hurdadu galaalab weeyaano go'aashan qalbiga tahaya jirka gudiisa gacaliyo walaalba isdila goriyo ayaano gurboodkii dhamayaye miyan ruuxba garanaynin guraygii halgamayo gudoono hingooy weyday sayidkii cadawaha guban cabasha garsino lagadi goglahay digtay wanga gabayae gayigi gumad ba ka dhacay adigadashayo gobaydi ad dhalisa harad gedka kici weyday jamaykanku wuxuu gursada waa hablihi gudka loo dabayo gangaha waxa loo xiraa waa gurbood kacayo galadu waxay luminayaan gabanadeniye garigiya uga dhimiya Kenya uga guray gorayadii cawshi miyaan weynay gaabigoodba sugan gabawdiyo rumbaan cawagalayayo abwangeeriyoodiyo mirangeska marayaaye qaliif gabayadu tiriyay baan soo gudbinayaaye gajadii jabamba gurteen jawharteeniyo godirkan jeclabay dilaan gesigan rabayo taariikhda waxay noo gasheen guldariyo ceebe go'ayayano gabaraba idin garad dhama gogol dhiga dalkiyo casuma gabiba Soomaali gogol dhiga Puntland oo casuma gabiba Soomaali gogol dhiga Hargeysa oo casuma gabiba Soomaali walaalaha isgoyana heshiis durugsan garsiya garcada weydin koonu naqin nabad guddoonsiya gacmaha isu saro la tali gacalka eedoobay oo go'aan adag intaad meel dhigtaan gooba qarankiina waranka xoolaha dawa ihin wadi lagu ridaa
waranka coolaha dawa ihin waadi lagu ridaa wanaagsanoo caalanka waa ihin wedha laga furaa kuwana wadamada shisheeyay wareegayaan kuwana meydkoodiibey hadduu weherarey ilaahayga subxaana qaadiraas bil soo qaada joogaana jannada ilaaha ka waraabsho dadkii ay ka geeriyoodeen iyo ahaladii iyo qaraabadii iyo dadkii soomaaliyeed oo dhanna waxaan u diraynaa haddaan nahay dadka UK joogo tacsi tiiraanya leh oo aan la soo koobi karin waxaan leenahay sabar iyo iibaa ilaahay ka siiyo ayagadana jannada Allah ka waraabiyo waxaan leenahay kuwa dhibka wado ilaahayga subxaana qaadiraay ha soo hanuuniyo wax kale u sheegna ma naqaan war waa kala daalnay dadkaasi aan la kulmay ayaa waxa uu dareenkoodu yahay markaasi mid muujinaya sida ay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan ay uga xun yihiin mashaqooyinka iyo colaadaha ka aloosan geeyiga Soomaaliyeed iyadoo markaasi had iyo jeer ay dagaaladaasi ku hoobtaan dad shacab ah oo masaakiin ah markaasi aan waxba galabsan. Maxamed Yaasiin, Universal TV, London.